maanta waxaan joognaa library-ga national library-ga ama maktabadda qaranka oo runtii macno badan waddankan u leh asaaskeediina ay shirkaddu qayb lixaad ka qaadatay gundhigeedii habeynteedii iyo howlgalkii iyo juudigii la geliyey sidii loo asaasi lahaa maktabad qaran oo lagu ururiyo ama laga helo wax la wixii buug ah la xidhiidha ama aqoon ahaadaan ama ahaadaan maxay cilmiyadiis kala duwan si jiilka soo socda ay uga faa'iideystaan dalkan in meel weyn oo wax walba laga heli karo hadday tahay buuggii caadiga ah iyo hadday electronic bookskii tahay labadaba muhiim bay u tahay shirkad ahaana sharaf weyn bay maanta noo tahay inaanu aragno library-gii oo meel wanaagsan maraya runtii markii horena aanu qaadhaan lacageed ku darnay anaanu diyaarnahay mar kasta inaanu ka qayb qaadano runtii shirkad ahaan mar walba halka uu maraya la socodkiisa kolba wuxuu u baahan yahay waxaan si gaar ugu mahadnaqayaa runtii dowladda jamhuuriyadda somaliland runtii iyo madaxweynaha wasiirka maaliyadda wasiirka waxbarashada runtii oo wax badan ka qayb qaatay waxaa kaloo mahday axmed oo runtii muxuu ahaaye dee hawl badan kaga baxday iyo dadaal badan iyo daba socod badan iyo inuu runtii danihiisa oo dhan soo uga yimaado siduu library-gaasi u aasaasmi lahaa ama meel u gaari lahaa iyo howlwadeennada dee salmiga ka mid tahay runtii ay jooga aad baan ugu mahadnaqayaa maanta waxaan halkan ku wareejinaynaa 357 buug oo ah buugagta ka hadlaya taariikhda soomaalida ama gabayada ama taariikhdii waddanka somaliland oo soo maray ka hadlaya runtii aan ku wareejinaynaa iyo 25 CD oo iyaduna cajilada oo xambaarsan xog badan oo ummadani leedahay aad baan ugu soo dhaweynaya gudoomiyaha waxaan ku leeyahay gudoomiye naga gudoom runtii maanta waxaa sharaf noo ah shirkadda telesom oo runtii library-ga ku suntan cabdikariin maxamediid gudoomiyaha shirkadda telesom bilowgii ilaa maanta runtii way nagala shaqaynaysay shirkadaha dalka ugu waaweyn waa shirkadda qura ee dhaqaale ku darsatay yani wax la qarin kara maaha waananu runtii waxaan jeclahay inaan halka ka sheegno daaqadaha aad arkaysaan shirkadda ayaa lacagtii ay bixisay 20 kun ahayd ayaa la geliyey waxa weeyaan waa daaqadaha ugu wanaagsan ugu tayada wanaagsan leh ilaa China laga keenay maantana nasiib wanaag waxay noo wada 300 buug oo aad u qiimo badan oo mid ka dhacaan u jiray runtii waxa kaloo cabdikariin maxamediid ilaa maalintii aanu bilownay dhulka ilaa shirkii u horeeyay koowaad ee aanu arrinkan kaga tashanaynay gudoomiyaha guddida qaran heer qaran isagaa noo ahaa goob wal iyo meel wal oo runtii hujuumaynana uu nala waday waxaan jeclay inaan isagana gaar ahaan halkan uga mahadnaqo waxaanu jecelnay in shirkadaha kalena insha allah rajo weyn baanu ka qabnaa waana ka warqabaan in aan laga dheerayn oo shirkadda telesom aanay xagga had iyo jeer tabarucaadka kaga horeyne dhammaan waxaan halkan uga mahadnaqaya oo ka faa'iideysanaya fursaddan dadkii ka qayb qaatay dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba joogay anigoon soo koobi karayn runtii madaxweynaha qaranku axmed maxamed maxamuud siiraanyo sharaf weyn iyo qadarin weyn iyo taariikhda baaldahaba ayuu kaga gelayaa national library-ga isagaa dhulka intaa leeg bixiyo waa 6 kun oo square meter isagaa intuu halkaa ka soo lugay madaxtooyada dhagaxna la dhigay budgetkii u horeeyay isagaa idin wasaaradda maaliyadda loogu daro runtii taariikhduna baaldahaba ayay kaga qormi doonaa waxaa kaloo jeclay in halkan uga mahadnaqo wasiirka iyo waxbarashada cabdilaahi ibraahim habane iyo wasiirka maaliyadda samsom cabdi aadan oo iyaguna juhdi xoogana la geliyay sacad cali shire dhammaantood ma tirin karayo runtii dadkii library halka soo gaadhsiiyay nagala qayb qaatay salmo ilaa maalinta iyaduna aanu shaqada wada wadnay oo aanan habeen qura aanan ka nasan iyo dhammaan asxaabteeda UK joogta Axmed Caydiid iyo Maxamed iyo dhalinyarada kale halkan Saciid iyo Ismaaciil iyo Yaxye iyo Mubaarak dhammaantood aad baan idinku mahadnaqayaa Maxamed mar labaad adiga iyo Yaasiinba iyo asxaabta kale ee Telesom waxaan jecelnahay insha Allah inta hadhayna nagaga tagi meeshaan way idinla dhamaynay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.